madxafka Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu dabaaldegay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay aas-aaska madxafka. Xafladan oo lagu qabtay xarunta farshaxanka ee magaalada Hopkins ayaa waxa ka soo qayb galay boqolaal qof oo Soomaaliya iyo dad cadaan ah oo xiiseynayay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee Soomaalidu ay ciyaaraan. madxafkan ayaa waxa uu ka mid noqday guulaha Soomaalida ee gobolka Minnesota. waxa uu noqday meel ay dadka ajnabiga ay u yimaadaan inay ku bartaan ama ku daraaseeyaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. madxafka ayaa waxa uu si joogto ah uga qayb qaataa bandhigyo lagu sameeyo iskuulaadka hoose, sare iyo jaamacadahaba. xafladan ayaa waxa ay ka duwanayd xafladaha kale ee siyaasadda lagu qabto gobolkan Minnesota ee lagu taageero maamul goboleedyada. waxaa ka soo wada qayb galay dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee jecel hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. waxaanan u kala harin waayeel iyo dhalinyaraba, waxaana gidigood ay ku haminayeen bal in ay maqlaan ama ay bartaan dhaqanka soo jireenka ee dadka Soomaalida. waxaa ka soo qayb galay ama yimid caruur yaryar oo uu madxafku ugu soo labisay qaabkii ay u labisan jireen dadkii hidaha iyo dhaqanka iyadoo weliba la casriyeeyay. waxaa lagu soo bandhigay bandhigan ruwaayad ka turjumaysa isbeddelka ku dhacay qoysaska Soomaalida iyo dhibaatooyinka ka soo wajaha dibadaha ay yimaadaan. ruwaayadan ayaa waxaa soo bandhigay fanaaniin ka kala yimid gobolada waddanka Mareykanka, Canada iyo Yurub. ugu dambeyntii xafladan ayaa waxaan fursad u yeeshay in aan Cusmaan Maxamed Cali isku duwaha aabaha aasaasay madxafkan bal inaan ka wareysto sida ay u dhacday sanad guuradii labaad ee madxafka. waxa uuna yiri sida laari aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. xafladda tan caawa waa xaflad la isugu yimi bay ahayd oo isugu yimaadeen dadka jaaliyadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay. Mareykan waa la isugu wada yimi, Mareykan dibaddeeda laga yimi, Yurub baa laga yimi. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida u dhacday. hawl baan u soo maray si ay tan oo kale u dhacdo. ciyaarihii Soomaaliga ahaa waxaa ka mid ahayd seelicdii, waxaa ka mid ahayd dhaantadii, waxaa ka mid ahayd hareerey, waxaa ka mid ahayd jaandheer oo inkastoo waqtigu aad u cidhiidh u noqday. ciyaaro badan baa la soo bandhigay, gabayaa la soo bandhigay, buraanburaa la soo bandhigay. I know hangol, kor, hanta, ubo, weso, sali, kebed. waxaan sidaas oo kale aan waraysi la yeeshay mid ka mid ah kooxdii soo bandhigtay ruwaayadii cajiibka ahayd. waxaanan ka waraystay bal waxa ay ruwaayadda ay ku saabsanayd inuu wax yar nooga sheego. waxaana ka mid ahaa hadaladiisa sida tan. waxaan meeshaan iskugu nime sanad guuradii labaad ee Somali Museum inaan la qaybsano farxadda iyo shucuurta aan u hayno dhaqankeena ummadda Soomaaliyeed oo ku dhaqan Minneapolis iyo nawaaxigeedaba. ruwaayad waxaan soo bandhignay la yiraahdo qisada quxukeena iyo qurbihii laga yaacay, taasoo ka turjumaysa maartay qoysaska ku soo qaxay qurbaha Soomaali iyo familiyada maartay waxyaalaha aan ka dhaxalnay wanaag iyo xumaan intaba ka turjumaysa. waxa ay kala qayb qaadanayay dad aan aad iyo aad ugu kalsoonahay runtii sida Lucky Muuse oo ah gabar aad u taqaanaan oo stage-ka qasaysa in muddaa tusmo oo caawa taariikh dhigtay buug u gali doonta ma sha Allah. tiisa jaceelka oo hooyadii qosolka Lucky ii sheegato oo ah mar walba qof ma sha Allah hooshada isku dabaridato gabdhahan saddexda iyo inta kale oo maqan. waxaa kaloo caawa nagala qayb qaatay riwaayadda Legend Nkrumah oo annaga noo wada ahayd habeen farxad leh run ahaantii, maadaama aan kala muuqanay stage hal sawirna uu noogu dhacay qof waa bari ii sheegato caawa ka jooga dad yar baa ka haray. riwaayaddaas looma kala harin. waxaa ku jirtay Nasteexa Indha, habaryartii aad igu dheer aan jeclahay saaxiib qaaliin inaa from all the way Norway ka timid script anigu aan qoray. sideedaba marka aad fiirisid aad tixraacid qisada quxukeena ee qurbihii lagu yaacay ayadaa ka turjum bixinaysa. riwaayaddu waxa ay ahayd waxaana qisada qurbaha keena waxay ka turjumaysaa calaanshaa hooyooyin maartay kiilkii raba inay buuxiyaan aabbaha iyo aabe dhaqankii hore ku qufulan yahay inay xaaska
gurigeeda joogto ilmaheeda haysato wuxuu dhaqaalaha soo galan oo asaga u armiyo jeebka uu gashto iyo dee roolkiioo la isku dhegan yahay meeshaanoo ii sheegto hooyadina rabta inay ismuujiso ay madaxa kor u qaado xorriyad ay ku heshay aabbihiina la maquusaya asagana uu raba in laga dambeeyo taasoona iskeenayn carruurtii oo ayaguna la siiyo xorriyad ayaa waxa uu dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ka raali gelinaya in ay ka buuxsantay meeshii loogu talagalay waxa uuna ballan qaaday in uu sanadka labaad lagu qaban doono xafladda haddii ay beedmo meel aad uga ballaaran meeshan. Axmed Laari, Kalson TV, magaalada Minneapolis.